السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولالها الصوماليد كسو دواد الكلنا كنتان sheeg maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay shirkadii guusha ee Oprah Winfrey ma waxaad ku nooshahan loo adag ma u malaynaysaa in noloshaadu adag tahay ma u malaynaysaa inaad guulaysan karin sababtoo ah faqiir baad tahay ama sababtoo ah ma lihid hanti kugu filan haddaba wax yar sug haddaa saa moodaysid ilaa aad ka arkaysid sheekada nolosha Oprah waxay ku dhalatay qoys faqiirin ah hooyadeed iyo aabaheed waxay ahaayeen qaar markasta isdagaalo oo isfahan fiican aanu dhaxwalin ugu dambeyntiina kala tagay Oprah waxa loo diray aayadeed si ay ugu noolaato waqti kadib Oprah waxa dib loogu diray hooyadeed taasi oo aan siin jirin daryeel iyo dareen badan waxaan u malaynaysaa inaad sawiran karto dhibaatada ay leedahay waalidkii kugu dhalay oo si ka fogeynaya kuna ignore gareynaya Oprah waxay dareentay inaan la jecleen waxaana bilowday inay isticmaasho daroogoyin iyo maandooriyo si ay iskaga yareyso murugada iyo xanuunka niyadeed ee haystay waqti kadib Oprah waxa loo diray aabahay si uu la noolaato kaasi ahaa nin aad u adag inkastoo aabaheed ninka adag haddana wuxuu ka caawiyay sida ay iskaga joojin lahayd daroogoyinka ay isticmaalayso oo ay xoog u saar lahayd dhisidda mustaqbalkeeda Oprah waxay heshay shaqo wariyanimo ah balse wax yar kadib shaqadii waa laga eriyay waxaa loo sheegay inaanay ku habboonayn inay TV ka shaqeyso sidee dareemi lahayd haddii qof kuu sheego inaad ku habboonayn inaad wax qabato isoo qofka sidaa kuu sheegaya uu yahay qof waxa khabiir ku ah alaab ka khabiirsan dhanka kale macnihi miyaad quusan lahayd waa darsho dhigi lahayd Oprah ma quusan mana rajo dhigin sidee guusha u gaadhay Oprah Winfrey Oprah markii dambe waxa lagu casuumay inay martigeliso bandhig laga sii daynay TV oo soconaya 3 daqiiqo sanad gudihii bandhigii wuxuu noqday mid caan noqda waxaana la kordhiyay waqtigu soconayay iyadoo laga dhigay saacado inta kadib bandhigii ama showgii waxa loogu magac daray Oprah Winfrey Show ama bandhigga Oprah Winfrey inta kadib Oprah waxay noqotay qofka koowaad ugu horeeya ee martigeliya bandhigyada TV-da laga hadlo iyo mid ka mid ah dadka ugu caansan ee ka hadla TV-da dhinaca dhaqaalaha Oprah waxay noqotay billionaire waa mid ka mid ah dumarka aadka ugu tirada yar ee qaatay diiwaanka ama ciwaanka milyaneernimada waxaana jira xog aad uga badan oo ku tacaluqa sheekada Oprah balse su'aalaha isweydiinta leh waxay tahay maxaan kuugu sheegayaa sheekada sababtu waxay tahay waxaan ogahay inay jiraan dad badan oo ku liiday hoosna kuu dhigay kuuna sheegay inaanad xog qaban karin isla markaana aanad ku ficilin sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego in dadka guusha gaadha ay badan la kulmaan diidmooyin la mid ah diidmadan ka hor inta aanay guulaysan maanta mawduucan intaas ayuu ku saabsan yahay haddaad ka heshay sheekada fadlan kanalka subscribe iyo like iyo share السلام عليكم ورحمة الله تعالى